بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم kusoo dhawaada channelka anaga aad ugu barateen maadooyinka scientific gaar ahaan maadada xisaabaadka iyo physics-ka iyo casharo ku saabsan kombiyuutarada. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno muuqaalkan half angle identities. Saad ogtihiin waxaan soo wadnay casharadii fasalka 12aad ama form 4-ga casharadii ku saabsanaa chapterka koowaad trigonometry analytic trigonometry. Waxaan soo qaadanay double angle identities, waxaan kaloo si lamid ah soo qaadanay compound angles, ayaan soo qaadanay sum and difference. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa half angle identity. Haddaba half angle identity maxaa waaye? Half angle identity waxaa waaye angle-kii oo la baray angle-kii hore aan usoo qaadanay ama special angleskiisa oo half ah. Tusaale angle 30 degree oo ahaa 15 degree ayaa laga dhigay angle-ka la baray. Si lamid ah muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa examples la xiriira half angle identity. waxaana ku isticmaalaynaa ama ku dabaqaynaa qaacidooyinkan sabuurada idinkaga muuqato, sida cos a half angle inuu leeyahay plus or minus 1 plus cos a all over 2 square root laga saaray. Si lamid ah sin a half angle wuxuu leeyahay plus or minus 1 minus cos a all over 2 square root laga saaray. Si lamid ah tan marka qaacidooyinkan derivationkiisa ama qaabka loo soo derive muuqaalkan uga hadli doonaa insha Allah. Noqon kara dabcan wuxuu noqon karaa 30 degree ayuu noqon karaa. Haddaan rabno inaan mathematically ahaan inaan u xalino, waxaan leenahay theta oo half ah, ileen waxaan ka hadlaynaa waa cos half ama half angle aan ka hadlaynaa Soomaan. Angle-kii half ah wuxuu leeyahay 15 ayuu leeyahay aan dhihi karnaa. Si lamid ah angle-koo dhameystiran heli karnaa halkan 2 ku dhufo hooseeyaha ah, halkaasna 2 ku dhufo, labadan 2 way isla baxayaan. Theta complete ah waxay leedahay 15 lagu dhuftay 2 30 degree ay leedahay. Halkan waa isla fahnay ama la ustaad. Waxaana la weydiiyay waa cos angle-kii oo full ah waan helay waa 30 degree. Qaacidadan ku apply gareyn karnaa? Yes, qaacidadan isticmaalaya. Qaacidada cos oo half angle waxaa lagu helaa plus or minus square root of 1 plus cos oo angle-ka loo qeybiyo 2 saana lagu raadiyaa. Angle-ka aan haysto meeqa waaye? Angle-ka aan haysto ustaad waxaa waaye 30 degree. 1 plus 30 degree cos 30 degree. Yes, angle-kan haysano waa cos 30 degree. Unicycle-ka ama trigonometric table-ka waxaan soo tilmaanay cos 30 degree intay la eg tahay, ama let us aan ku apply gareyno cos 30 all over 2 saan aan dhahan. Unicycle-ka waxaan rabaa trigonometric table-ka waxaan ognahay cos 30 intay la eg tahay, ratio aan intay la eg tahay. Cos 30 waxay la eg tahay ustaad, cos 30 waxay la eg tahay 1 plus root 3 all over 2 ay la eg tahay. Cos 30 root 3 all over 2 ay la eg tahay, all over la hoos dhigay labadan halkaan aan haysan. Plus iyo minus waxay ka turjumaysaa ustaad, meeshaan si fiican u fahanno. Plus or minus waxay ka turjumaysaa angle-kan wuxuu noqon karaa quadrant-ka koowaad. Quadrant-ka koowaad waxaan ognahay ayaga inay positive yihiin, ama wuxuu ku noqon karaa quadrant-ka labaad oo sin bis positive ah, cos negative ku noqon karaa. Marka jawaabta ku soo baxayso always positive ma noqon karto, si lamid ah always negative ma noqon karto. Jawaabta ku soo baxaysa depends on which quadrant the trigonometric function is applicable. Yani jawaabta ku soo baxayso waxay ku xadidan tahay quadrant hee ayuu isiinayaa markaan xaliyo trigonometric function-ka. Aan solve gareyno marka. Hooseeyahan maxaan ku sameeyaa function-kan, waxaan rabaa expression-kan inaan xaliyaan rabaa. Laba hooseeyuu leeyahay. Hooseeyahan si aan u baabi'ino waxaan ku dhufanayaa kor iyo hoos, halkaana ku dhufo, halkaana hooseeyaha ku dhufo. Labadan bracket way ku dhacaysaa oo halna way ku dhici, root 3 all over 2 na way ku dhici. Hal lagu dhuftay 2 waa 2 plus root 3 all over 2 lagu dhuftay 2 way isla baxayaan. Halkan waxaan helayaa root 3 all over 2 times 2 4 oo square root laga saaray. Qaybta sare root-ka kama baxay, laakiin qaybta hoose root-ka baxay. Wuxuu uga baxaa root oo qaybta sare plus or minus 2 plus root 3
all over square root ka saar afarta laba uga baxaya ustaad example-kaas halkaas ayaan uga gudbaynaa oo ah okay example-kan ustaad wuxuuna leeyahay waxaan raadisaa tan 22.5 adigoo isticmaalayo qaacidadan formulahan ayaan ku dabaqaynaa si aan u xalin okay angle-koo dhammaystiran inaan helnaa qasab ah half of the angle wuxuu leeyahay hadda 22.5 buu leeyahay 22.5 si aan angle ku dhammaystiro hooseeyahan labada halkan ku dhufo halkan ku dhufo labadaas isla baxayaan theta waxay leegtahay 22.5 lagu dhuftay 2 oo 45 degree okay tan oo half ah qaacidadan isticmaalan lahay waxaan leeyahay marka sin 45 degree loo qaybiyey 1 plus cos 45 degree okay waxaan ogahay trigonometric table waxaan ogahay cos 45 intuu leeyahay cos 45 wuxuu leeyahay root 2 over 2 loo qaybiyey 1 plus cos 45 wuxuu leeyahay asigana root 2 over 2 ayuu leeyahay okay hooseeyaha qaybta sare ah si aan u baabi'iyo kor iyo hoos ayaan ku dhufanayaa halkaan waan ku dhufanayaa halkaan waan ku dhufanayaa labadan waa isla baxayaan qaybta sare waxaan helayaa root 2 over si lamida bracketkan labada halkuu ku dhacayo ku dhufo waa 2 plus root 2 over 2 na wuu ku dhacaya marka labadan waa isla baxayaan halkaan waxaa ii soo qaybta sare waa root 2 over 2 plus root 2 over 2 okay waxaan ku sameynaa ustaad hooseeyaha conjugatekiisa oo ah 2 minus root 2 over 2 minus root 2 ayaan kor iyo hoos ku dhufanayaa hooseeyaha conjugatekiisa aan kor iyo hoos ku dhufanayaa okay qaybta sare waxay inoo soo baxaysaa root 2 oo ku dhacsan 2 minus root 2 oo ku xiran 2 plus root 2 lagu xiray lagu dhuftay bracketkan root 2 minus root 2 qaybta sare waxaa ii soo baxaysa root 2 times 2 waa 2 root 2 minus root 2 times root 2 waa root 4 square root ka saar waa 2 all over okay bracketkan xalinayna marka ustaad bracketkan markaan xalinayna waxaan ugu dhufanaynaa waan kala jebinaynaa laba banaanka ii dhigo bracket kale sidiis usoo celi 2 minus root 2 dheh plus dheh marka root 2 bracket kale sidiis usoo celi 2 minus root 2 okay qaybta hoosaan xalinaynaa marka qaybta sare already waan haysanaa soo qaybta hoosaan xalinaynaa qaybta sare waa 2 root 2 minus 2 all over qaybtaas 2 times 2 waa 4 minus labadan isku dhufo waa 2 root 2 minus yes kan ayaa minus ah kanna waa plus labada bracket midkaan aan kala jebiyey midkaas aan ku dhufo okay labadan isku dhufo waa plus 2 root 2 plus iyo minus oo isku dhacaan waa minus root 2 times root 2 root 4 square root ka saar waa 2 labadan waa isku qiimo waa isla baxayaan okay qayb sare waxaa haystaa 2 root 2 minus 2 all over 4 minus 2 4 minus 2 labadan waa isla baxayaan soomaan halkan waxaa kusoo haray 4 minus 2 kala jar waa 2 okay root 2 all over root 2 2 root 2 minus 2 all over 2 micnaheedu waxay tahay labadan hooseeyaha labada sare way wadaagaan all over 2 minus 2 all over 2 waan ku fududayn karaa marka labadan isla bixi halkan waxaa haystaa root 2 minus isku qaybi labadan 1 all over 2 c tan s all over 2 ustaad su-aashaanada saanay u dhigan tahay waxaa lahay cos s waxay leegtahay 2 all over 3 halka s ay u dhaxayso waxay ka yartahay 2 by way ka weyn tahay 3 by all over 2 way ka yartahay micnaheedu waa s waxay dhacdaa waaxda saddexaad ay dhacdaa quadrant-ka saddexaad ay dhacdaa 2 by waxaan rabaa waaxda afraad bay dhacdaa 2 by way ka yartahay 3 by all over 2 2 by way ka yartahay 3 by all over 2 way ka weyn tahay micnaheedu ay tahay waxay dhacdaa quadrant-ka afraad quadrant-ka afraad yaa positive ah all student take chemistry cos are positive that's why cos s ay positive u tahay halkaas okay
maadaama cos s na la siiyey su-aasha noo dirayna ay tahay sin s all over 2 iyo cos s all over 2 waxaa inoo fudud inaan helno labada function ugu horeyso aan ka bilaaban sin s all over 2 waxay leegtahay plus or minus root 1 minus cos of s angle-ka s aan u qaadano cos of s all over 2 okay plus or minus root 1 minus cos s meeqa haystaa waxaa haystaa 2 all over 3 all over 2 okay qaybtaan aan fududaynayna marka qaybtaan 3 kor ku dhufo isla 3 hoos ku dhufo okay 3 markaan halkan ku dhufto waxay noqonaysaa 3 minus labadaas oo isla baxayaan 2 all over labadan isku dhufo waa 6 root laga bixiyo okay labadan kala jar waa 1 all over 6 oo root ku jiro okay 1 root buu ka baxaa wuxuu ga baxaa 1 buu uga baxaa laakiin root 6 sideeda ayaan ku deynaa marka halkaan waan ku deynaynaa maya sababtoo ah hooseeyaha wuxuu ku jiraa hoos root 6 ku dhuf root 6 1 times root 6 waa root 6 root 6 times root 6 waa root that 6 square root ka saar waa 6 okay kuwa dhaantaha afaraad yaa positive ah kuwaasa positive ah kuwa kale negative ka qaadanaya halkaan marka waxaan haystaa root 6 all over 6 b cos s all over 2 cos oo half angle ah maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa plus or minus 1 plus cos s all over 2 qaacidadaas isticmaalayna okay cos s na waa haystaa plus or minus 1 plus 2 all over 3 all over 2 si aan u baabiyo hooseeyahan 3 halkaas ku dhufo hooseeyahana ku dhufo okay halkan way ku dhacaysaa waa 3 minus labadaas way isla baxayaan 2 all over labadan way isku dhacayaan waa 6 square root laga bixiyo labadan kala jar waxay noqonaysaa 1 is plus isku darsamayaan waa formula labadan isku dar waa 5 all over 6 oo root ku jiro okay waan kala qaaday marka root 5 all over waxay u kala baxayaan root 6 marka maadaama hooseeyaha radical uu ku jiro root 6 kor iyo hoos ku dhuf root 6 root 5 times root 6 waa root 30 waa root 30 all over root 6 times root 6 waa root 36 root ka saar waxay noqonaysaa 6 ay noqonay maadaama marka cos aan ku deynina oo positive way angle is positive ugu daa okay ano b na waan helay waxaa inoo dhiman c oo tan half angle option badan noo furan waxaa noo furan qaacidada tan oo half angle ah inaan isticmaalno saddexda qaacido oo hore usoo qornay aan isticmaali karnaa or else waxaan isticmaali karnaa maadaama tan lagu helo sin theta all over cos theta waxaan dhihi karaa sin s all over 2 all over cos s all over 2 yani sin oo half okay aan dhahno marka sin oo half angle ah meeqa inoo soo baxday sin oo half angle waxaa inoo soo baxday root 6 all over 6 loo qeybiyey cos oo half angle meeqa haysanaa halkan negative way root 30 all over 6 okay tan waxaan ka dhigi karaa si fudud waxaan dhihi karaa labadan ayaan isla bixin karaa ama waxaad dhihi kartaa haddaa labadan isla bixiyo waxa ii soo bixayso negative root 6 all over root 30 ama waxaan dhihi karaa calaamadan qaybta ku dhufashaan u bedelayaa kadib kana reciprocal ku dhacayo 6 oo isla baxaya ama sidaan ku sameynaa okay maadaama hooseeyaha radical uu ku jiro kor iyo hoos ku dhufo root 30 korna ku dhufo hoosna waxaad ku dhuftaa root 30 okay labadan isku dhufo labada root marka isku dhufatid waxaad helaysaa 180 all over labada root isku dhufo waxaad helaysaa 900 square root ka saar 900 waa 30 yes okay meeshaan marka waxaan sameynaynaa
waxaan sameynaa sad ayaan ku sameynaa waan fududeynayna maadaama midka sare uu perfect square root usan lahayn laakiin square root ayaan kasoo dhex saareen perfect square root ayaan kasoo dhex saareen ama number perfect square root ayaan kasoo dhex saareen okay oo ah haddaan saan u kala qaado waxay noqonaysaa 36 lagu dhuftay 5 all over 30 sidaan u kala qaadi karaa okay 36 ayaa square root ka baxaya wuxuu ga baxaa 6 5 na sida u daa all over 30 by 6 waa 1 by 6 waa 5 okay wuxuu noqonaa negative 5 all over 5 example kaasna halkaas ayaan ugu gudbaynaa simplify each expression midka hore haddaad fiirisid waa cos identity waa marka cos oo half angle ah cos theta all over 2 ayaa la eg plus or minus 1 plus cos theta all over 2 marka maadaama identity uu common yahay waxaan leeyahay meeshan waxaan ku bedelaa cos theta-da 12 ay la eg tahay all over 2 oo la eg cos 6x kaas halkaasaan kaga gudbaynaa b 1 minus cos 5a all over sin 5a tanna waa tan identity ayaa saan loo furfura therefore marka waa one of the tan identity tan oo half ah marka waxaan leeyahay tan theta all over 2 ayaa la eg 1 minus cos theta all over sin theta marka meeshaan waxaan ku bedelaa tan theta meeqa haysta theta waxaan haystaa 5 alpha all over 2 example kaasna halkaas ayaa ugu gudbaynaa sin x okay waxaan xaqiijinaynaa equation kan markaan furfurno oo left hand side markaan furfurno inuu na siinayo right hand side oo ah 1 minus sin of x okay ma iswaafaqayaan labadan equation haddii kan la furfuro kaas ma isiinayo let us prove expression kan ama bracket kan micnihiisu waxa waa laba jibaaray asiga ayaa laba jeer isku dhufan sin x all over 2 plus cos x all over 2 oo ku dhacsan sin x all over 2 plus cos x all over 2 san waa square haddii lagu dhaho waa san okay waxaan sameynaynaa marka sin bracket mid ii kala fur kala jabi midna sidiis u soo qaado sin x all over 2 plus cos x all over 2 dheh kan sidiis soo qaado plus cos x all over 2 bracket sidiis u soo celi sin x all over 2 plus cos x all over 2 xir bracket okay labadan sin isku dhufo way isku dhacayaan sin times sin waa sin square x all over 2 plus sin times cos waa sin x all over 2 cos x all over 2 plus labadan way isku dhacayaan waa sin x all over 2 cos x all over 2 ay ku siinayaan plus marka cos times cos wuxuu ku siinayaa asigana cos square x all over 2 okay halkaan markaan joogno waxaan sameynaynaa kuwa laaga ah isku geynaynaa labadan laag times ay isku yihiin waa isku geynaynaa sin square x all over 2 labadanna isku dhinac soo mari cos square x all over 2 plus labadan maadaama laag times ay isku yihiin isku dar waa 2 sin x all over 2 cos x all over 2 okay halkaan waxaan haystanaa halkaan ila fiiri ustaad halkaan waxaan haysanaa trigonometric equation-ka tilmaamaya haddii coskoo laba jibaaran lagu daro sinkoo laba jibaaran inay ku siinayso 1 marka whatsoever angle-ku uu yahay angle-ka hadduu half yahay iyo angle-ka hadduu double yahay iyo angle-ka hadduu single yahay waxbaa ku mashquulin coskoo laba jibaaran angle wata haddii lagu daro sinkoo laba jibaaran waxay ku siinaysaa waxay la eg tahay 1 ay la eg tahay intaas waa inaad fahantaa okay halkaan waxaan ku bedelayaa marka 1 plus 2 sin x all over 2 cos x all over 2 saan ku bedelo okay qaybtan ila fiiri ustaad qaybtan waa double angle identity oo sin oo double ayaa saas loo furfura okay qaybtan waxaan ku bedelayaa ayadana sin oo double ah plus sin oo double ah waa sin 2
x marka meeshaan xt ayaa waxaa la eg x waxay la eg tahay qiimaha angalka x oo laba 2 ay ku bedel 1 plus sin 2 x oo laba 2 fududay x 2 iyo 2 isla bixi aan soo celiyo waa 1 plus sin 2x marka meeshaan double angle identities aan ku bedelay angle-kan wuxuu leeyahay x oo laba 2 meeshaan x waxaan ku bedelayaa x oo laba 2 waa 1 plus sin 2x oo laba 2 fududay marka laba la bixi halkaas waxaa ku soo haray 1 plus sin times x sin x identity-ga ma iswaafaqay u saad qaybta markaan furfurnay ma la eg tahay 1 plus sin x yes identity-ga uu iswaafaqaya therefore waxaan leenahay waxaan xaqiijinay labadan identity inay labadan equation inay identities ku yihiin marka casharkiyaan ugu talagalnay half angle identity halkaas ayaan uga gudbaynaa waxaan bilaabaynaa insha Allah trigonometric equation 1 iyo trigonometric equation 2 muuqaalada xiga insha Allah si lamid ah walaalayaal si lamid ah waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno muuqaal cadeynayo half angle identity derivation kooda ama proof cadeynayo half angle identity qaabkay ku imaadaan insha Allah